maxad ka taqaanaa dabaaldegan ajiibka ah oo Norwejiyaanka markay guuleystaan ay sameeyaan xidigaha xulka qaranka Norway iyo dhammaan taageerayaashooda ayaa lagu arkay dabaaldeg ajiib ah xilli ciyaareedkan kadib markay soo gaareen quarter finalaha ee World Cup-ka. xidig ka mid ah xidigaha Norway Martin Odegaard ama Eren Brock Haaland midku yahay ayaa dhammaantood wuxuu sameynayaa inuu durbaan soo qaatay keligiisa inuu garaaco dadka kalena saf galaan. xitaa taageerayaasha waxay sameeyaan dabaaldeg ajiib ah oo loo magacaabo zoo ay dadka intooda badan u magacaabaan ama ay u maleeyaan laakiin ma ahane ee waa ruu. dabaaldegan Norwejiyaanka haatan la soo baxay waa dabaaldeg ajiib ah dhammaantoodana ay isku yaqaanaan xulka qaranka Norway meel walba ay joogaan. xidigaha xulka qaranka Norway iyo dhammaan taageerayaasha ayaa lagu arkay masrax inay shitaan markay ciyaarta dhammaato kadib dabaaldega ay sameeyaan oo loo yaqaano ruu. dabaaldegan inta badan dadku waxay u maleeyeen inuu yahay zuugi Cristiano Ronaldo laakiin ma ahan, kan waa mid ka duwan. zuu meesha ay Ronaldo ka tahay tan waxay ugu magacaabaan ruu. dabaaldegan waa dabaaldeg ajiib ah oo xulka qaranka Norwejiyaanka keli u ah waana hidaha iyo dhaqanka dalkooda. sida aad ogtahay wadan walba wuxuu leeyahay hidaha iyo dhaqan u gaar ah oo ama ay ka duwan wadamada kale. dabaaldegan ruuga oo adiga haatan aragtid kuma koobno ciyaartooyda kaliya ama taageerayaasha kubadda cagta, waa ciyaartooda oo qaaska ah oo wadanka Norway oo gaarka ah waxayna sameeyaan dhammaanba waqtiyada farxadda. xitaa waxaa dabaaldegan sameeya dadka militariga special forceska booliska iyo sidoo kale bambeyda dadkan anaga u naqaano. dhammaan xibnaha kala duwan ee dowladda Norway ama xidigaha Norway ay sameeyaan dabaaldeg anaga way noo tahay laakiin iyaga waa dhaqankooda hab dhaqankooda ay sameeyaan waxayna qaataan waqtigooda farxad leh. markay qaadanayaan waxay ku qasban yihiin inay sameeyaan waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka wadankooda waa ama ciyaar dhaqameedkooda. haddaan hay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dabaaldegooda ama hidaha iyo dhaqan u gaar ay leeyihiin waana ciyaarta loo yaqaano dhaantaha ama dheesha loo yaqaano dhaantaha, halka dhammaan Soomaalida oo idil ay leeyihiin ciyaaro kala duwan oo u kala baxaan qabyaalada ay degaan geega Soomaaliyeed oo idil. laakiin xulka qaranka Norway dabaaldegan sameynaya waa bartay anaga noo taagan tahay hidaha iyo dhaqankeena oo aan ku maamusno waqtiyadeena guusha ama waqtiyadeena farxadda. xidiga xulka qaranka Norway Eren Brock Haaland ayaa durbaanka u garaacay kulankii ugu dambeeyay markay xulka Brazil ka soo talaabsadeen. kadib durbaanka markuu garaacay dhammaan xidigaha dalka Norway inay saf fadhi ay wada galaan ayay dhammaantooda waxay sameeyaan reefis inay geliyaan ruu markay iyaga dhammaantooda gadaal isku rugaan. taageerayaasha sidoo kale ay saaran yihiin tarbuunka sidaas ay sameeyaan. dhammaan qof walba ka daawanaya dhalooyinka oo xitaa ay ka jiraan wadankooda isla dabaaldegaas ayuu sameynaya. xitaa militariga booliista looma kala xirin dabaaldegan. marka haddii aad uwal ku dhibneed waa maxay dabaaldegan cusub ee dalka Norway sameynaya, kani ma ahan dabaaldeg oo qaas ah ee waa hidaha iyo dhaqanka dalka Norway. aad baad u mahadsantihiin saaxiibadeyda.